jimco wanaagsan mar kale dhageystayaal sidaan horeyba idinkugu sheegay waxaa dooda jimcaha ee galabta aan ku falanqayn doonaa dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban in la qabyo tiro iyo sida xal loogu heli karo waxaana barnaamijka martin ugu ah oo igala qayb galaya Maxamed Daahir Afrax oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka oo muddo dheerna ka shaqeynayay arrimaha dastuurka xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ah gudoomiyihii hore ee guddiga dib u eegista dastuurka ee barlamaankii hore ee Soomaaliya waana qabiir arrimaha dastuurka muddo dheer ka shaqeynaysa kuna xol dheer waxay joogtaa Muqdisho waxa sidoo kale dooxa nagaga soo biiraya Dr. Afyare Cilmi oo wax ka dhigay jaamacadda Qadar wuxuuna wax badan ka qoray arrimaha dastuurka iyo siyaasadda Soomaaliya wuxuuna joogaa dooxa saddexdiinaba ku soo dhawaada barnaamijka marka hore horay ayaan barnaamijka u guda galaynaa waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa dastuurka Soomaaliya ka shaqeyntiisa iyo qabyatirkiisu mudday soo socotay waxaana dastuur sameynta Soomaaliya ay ka soo bilaabatay arta wixii markii dawladii lagu dhisay axdigii qarameedkana halka lagu saxiixay muddo 20 sano xilliga laga joogaa dastuurkan qabyatirkiisuna 12 sano ayay hadda socotaa waxaan ku bilaabayaa Maxamed Daahir Afrax gudoomiye soo dhawow hawsha qabyatirka dastuurka Soomaaliya halkee hadda maraysa بسم الله marka hore waa idin salaamaya baada idaacada BBC iyo dadkana dhageysanaya adan iyo akhyaarta dooda ku jirta xildhibaan Maryan Cariif iyo Dr. Afyare Cilmi intiina waa idin salaamaya gudoomiye codkaaga nagu hooseeya waxay codkaada kor noogu qaad horeyna ugu soco jawaabteeda telefoonka laga yaabaa la kulikeenay tahay isku dayayaa inaan kala hadlo waxaan sheegay inaan marka hore salaamayo baaba idishada iyo xildhibaan Maryan Cariif iyo Dr. Afyare jawaabteeda haddaan usoo gudbana waxay la tahay halka oo hadda marayo dastuurku si loo fahmo waxaa muhiim ah in halkii uu ka yimi muxuu ahaa la iftiimiyo haddiise hadda muxuu ahaa aan isku koobo su-aashaas waxay la tahay waxay ku saabsan halkii uu ka yimid iyo halkii uu ka yimid inoogu hormar markaa oo si koobanna inoogu sheeg adoo markaa raaci doona halka uu hadda joogo halkii uu ka yimid waxa weeye dastuurkani wuxuu soo wada dheer oo qoxa badan muddo dheer buu soo jiitamay sidii hadaha ku sheegtay muddadaasi waxay u qaybsantaa marxaladahaas waxa ugu waaweyn marka hore laba marka xigana labadaas ay u kala qaybsamaan muxuu kale labadaas hore waaweyn waxa weeye marxaladii qoraalka qabiyo qoraalka marxaladii dastuur qoridda ayaa la oran karaa iyo marxaladii dib u eegista dastuurka marxaladaas hore oo muxuu ahaa qoraal diyaarinta qoraalka qabiyo qoraalka dastuurka waxa ay ku beegneed muddadii udhaxaysay 2006 ilaa 2012 2012 laga bilaabo ilaa hadda waxa weeye marxalada dan dib u eegista yani waxa lagu magacaabo geedi socodka dib u eegista dastuurka marka taalabkeedu gudoomiye Maxamed Daahir Afrax waan kugu soo noqonayaa codkaaga ayaynan si fiican u maqli kareenin marka waynu kugu soo noqonaynaa waxaan u gudbayaa xildhibaan Maryan Cariif xildhibaan Maryan muddo dheeraad adiguna dastuurka qayb ka aheed oo adigii gudoomiyuu u ahaa guddigii barlamaankii hore ee arrimaha dastuurka ka shaqeynayay bal intii aad ka maqashay gudoomiye Maxamed Daahir Afrax adoo ka sii anba qaadaya maxaad naga xasuusi karaysaa si kooban marxaladihii dastuurka uu soo maray horta dastuurka sameynta bismillahi raxmaani raxiim wanaagsantiin inaad iga ajeynteen halkan maanta isiiseen fursadan dastuur sameyntu walaal wax sahlan ma aha dastuurku layska qorqoro markaas layska fiirfiiraayo ma aha
dastuurku waa aasaaska dowladnimada Soomaaliya, waa aasaaska maxay ahayd dib u heshiisiinta shacbiga, waa aasaaska maxay iyo saldhigidda muraadka Soomaaliya ay leedahay iyo meelaha ay u socoto. marka dastuurka si aad marka hore in looga fiirsado waa sidii marka la sameynaayo. waxaan rabaa marka dib yar in xoogaa yar inaan dib ugu celiyo. dastuurka koowaad ee Soomaaliyeed horta waxaa la sameeyey 1960 ayaa la sameeyey. dastuurkaas wuxuu shaqeeyey, dastuur wuxuu ahaa unitary system of government waxa la yidhaha ku shaqeeyo. hadda waa ka duwannahay, waa anaga federal qaadanay, waxaana uu shaqeynahayay berigaas 9 sano. markuu 9 sano shaqeeyey ayaa dowladii militariga ee dalka qabsatay. dastuurkana waa la laalay, halkaasaa dastuur loogu dambeysay. dastuurka lagu soo noqdo labaadna wuxuu ahaa kii 2 dastuur oo isku xigtay oo laga sameeyey maxay ayagoo qabiyo qoraal ah dowladda ay dhacday, laakiin labadaba la sameeyo la isku dayay bal dowladda militariga ahayd in habka sharciga iyadana lagu soo rido, wadada sharciga lagu soo rido oo dastuur loo sameeyo. midaa marka hore la sameeyey, mid kalena kadib la sameeyey. laakiin dastuurada Soomaaliya loo sameeyey berigaas waxay ku dhismaayeen kulligood habka la yiraahdo hal dowlad, waxa federaalka ah ma jirin. dastuurkan cusub hadda lagu soo faa'iiday marka hadda waan ka hadli doonaa system federal ah ku dhex jira. waayahay aad baad u mahadsantahay xildhibaan Maryan. si kooban baad noogu sheegtay marxaladihii dastuur samaynta Soomaaliya ee soo martay iyadoo 60kii laga soo bilaabayo. waxaan ku noqonayaa gudoomiye Maxamed Daahir Afrax. waxaan rajaynayaa markan in si fiican aan isu maqli kareyno. gudoomiye si kooban xildhibaan Maryan oo hadalka kaaga horeysay hadda ayaa taariikhdii dib noogu celisay. marka midkan federaalka ah ee hadda qabyada ah, bal si kooban marxaladihii uu soo maray noo xasuusi iyo halka uu maanta joogo. waa mahadsantahay. wuxuu soo maray wuxuu ka soo bilowday sidii aan carab ku dhigtay markii dhaweyd 2012 ayaa qabiyo qoraalkii ugu horreeyey ay soo bandhigeen oo ay ansixiyeen kulan lagu magacaabay kulanka ergooyinka dad laga kala keenay bulshada reeryada kala duwan iyo gobolada dalka oo dhan oo ka koobnaa ahayd 835. dabadeedna baarlamaankii 9aad ayaa asaantii ama bilashadii 2012 laga dhigay oo ansixiyey si kumeel gaara loogu dhaqmo. halkaasuu kasoo bilowday. marka baarlamaankaas 9aad muddadiisa waxay ahayd markaa qorshihii la dejiyey wuxuu ahaa inuu ku dhamaado muddo 4 sano oo ah muddaxileedka yani baarlamaankaas iyo dowladii waktigaas oo gudoomiye uu ka ahaa madaxweynaha xasan sheekh. wuxuu qayb ka ahaa qorshihii weynaa oo lagu magacaabay higsiga 2016. waxay ahayd markaa 2016 inuu dastuurku dib u eegistiisu inay ku dhamaato, afkii dadweyne lagu qabto, wadankuna marxalad cusub u gudmo. laakiin nasiib daro cimilooyinkii qorshahaasi higsiga 2016 lagu magacaabay oo uu qayb ka ahaa dastuurku laguma guuleysan. waxay ugu weyneyd in dastuurka dhamaystiro, afti ku salaysanna la qabto. waxay noqotay markaa in baarlamaanku go-aan soo saaro ama khilaaf laleeyahay dastuurka ku dhaqankiisi waa sii soconaya iyo hawshii dib-u-eegista oo laga waday. markaana marxalad cusub baa bilaabatay oo la bilaabatay baarlamaankii ku xigay oo ahaa baarlamaankii 9aad iyo dowladii ku xigtay oo ah dowladda hadda xilligeeda uu sii dhamaanayo. marka xilligaas waxay noqotay in dastuurka dib-u-eegistiisi dib loogu noqdo. xilligaa hore oo ku beernaa baarlamaankii 9aad guddigii uxilsaaraa, labadii guddi ee uxilsaaraa midna ahaa guddiga madaxa banaan dib-u-eegista iyo hirgelinta dastuurka, midna ahaa guddiga la socodka ee baarlamaanka oo gudoomiyaha ka ahay xildhibaan Maryan Cariif. dadaal weyn bay soo sameeyeen. guddiga madaxa banaan inkastoo la dayacay oo haba yaraatee wixii uu ku shaqayn lahaa oo dhan maaragtay laga curyaamiyey oo aan xafiis iyo kursi iyo miis iyo magaranaysaa computer midna la siin waa iska raftay. waxa aanu diyaarinay dib-u-eegis dhammaan cutubiyada uu ka kooban yahay ama jabtarada waxa loo yaqaano dastuurku uu ka kooban yahay 15
gudoomiye maxamed daahir intaadan hore usii socon gudoomiye maxamed daahir intaadan hore usii socon arrinka aad ka dhawaajisay aan wax kaa weydiiye oo dayacaada guddiga madaxa bannaan ah hadda qalab iyo xafiis iyo meel aad ku shaqaysaan ma leedihiin mise weli waa xaalku siduu berigii hore ahaa hadda waa leenahay 2 sano oo ugu dambeysay ayaa uu jiray xafiis iyo qalab maaragtay guddiga ku shaqaynaya taasina waxaa suurtageliyey muxuu ahaa qayladaan badan oo aanu ku daba joognay muddo aan yarayn waxaan la yidhaahdo international community-ga qolyaha ku lug leh arrimaha uu dastuurku ka mid yahay oo markii dambe u xisaaday hay-adda UNDP inay xafiis guddiga ku shaqeeyo iyo qalabkii qalabayntii xafiiskaas iyo fududayn gaadiid intaas inay suurtageliyaan intaasaa markaasna markii ugu horreysay oo xafiis uu yeesho 2 sano hadda lasoo dhaafay oo keliya sanadkii ka horreeyeyna si ku meel gaar ah wuxuu guddiga ugu shaqaynayay hal qol oo uu ugu daaqay aqalka sare markii la dhisay xafiisyada aqalka sare nala ka siiyey guddoomiyaha aqalka sare maaragtay cabdi xaashi guddoonka aqalka sare iyo aqalka sare guud ahaan ba ay maaragtay muxuu aha noogu deeqeen oo meel yar oo ciriiri iska laakiin waxay dhaantay meeshii waayahay waa xaalad dambana meesha ay nooga dhiseen muxuu ahaa UNDP xafiiska ay ka dhiseen waa dhul ay maaragtay isla aqalka sare loogu deeqeen oo kumboonkooda qayb ka ahaa ayuu ahaa waya waa xaalad adag oo mudan waa xaalad adag oo mudan in markeeda si gaara looga hadlo duruuftaas iyo sida aad ku shaqaynaysaan iyo maxaa la yidhahdayy agabka iyo farsamada iyo wixii aad u baahneedeen inaysa idin dhamaystirneen balse aan dib ugu soo noqono weydiintii hore aan kuu weydiiyey anoo u gudbi doono wax yar kadib doctor afyare cilmi maanta meeshuu joogo dastuurka markii la eego maxaa horta ka qabyo ah maxaase u qabyo tiran oo u dhamaystiran waxaa uqabateen taas waxaan kuugu xoreeyaa geedisocodkii soo socday dastuurka waxaa qabiyo qoraalkii waataan kuu sheegay halkaan hore ugu dhuftay 4 qabiyo qoraal baa la diyaariyey oo mid walba aan ugu talagelaynay in baarlamaanka intaan u gudbino iyo qolyaha go-aanka siyaasadda inay ka heshiiyaan waxyaalaha la isku hayo markaa kadib muxuu ahaa la ansixiyo marka 4 qabiyo qoraal kii ugu horreeyay wuxuu ahaa kii aanu soo bandhignay oo baarlamaanka u gudbinay xilligii hore baarlamaankii 9aad markii uu sii dhamaanayo bishii muxuu ahaa bishii oran jiray May 5aad aan u gudbinay oo guddiga madaxa bannaan intii guddiga la socodka oo soo gudbiyey gudoomiye Maryam Cariif magacaas oo ku baxsanayna khatan ugu jirtaaw ay u gudbisay guddoonkii baarlamaanka laakiin baarlamaanku haleelin oo wax shaqaa ka qaban kaas waa kii koowaad qabiyo qoraalkii koowaad haddana wuxuu marayaa qabiyo qoraalkii 4aad ayaa waxaan gabagabaynay bishii 6aad oo lasoo sanadkii hadda dhamaaday bishii June ayaan gabagabaynay oo u gudbinay sida guddiga hadda aan la shaqaynay oo muxuu ahaa baarlamaanka marka guddiga baarlamaanka iyo labada guddiga baarlamaanka la socodka iyo guddiga madaxa bannaan oo si wada jira u shaqaynayay iskaashi maaragtay muxuu ahaa dhow ku shaqaynayay ayaa isagoo ka wakiila guddiga baarlamaanku labadii guddi ayuu u gudbiyey guddoonka labada aqal ee baarlamaanka marka halkaa waxa weeye waxaanu filaynay intaasna waxaanu soo ricnay mar walbaba markii wakti muddo loo qabtaba waxaa dib u dhaca keenaya waxay ahayd qaybta waxaa mar walbaba qabyo ahaanaysay qodobada tahay in marka hore wadaxaajood siyaasadeed ay u heshiiyaan hogaanka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed qodobada aan dhacayn waya gudoomi uu dhamaanay iyagoo aan hawshaa qaban baarlamaankuna markaan u gudbino iyaguna ma ay aada bay celid u ahayd inay ajendaa ku dirsadaan oo laga hadlo baarlamaanka dastuurka marka hadda wuxuu marayaa haddaan saadaysi dariga ugu dambeeya maaragtay maxaa kugu sii reexo meesha hadda uu marayo waxa weeye dib eegistii oo dhamaatay waxaa loo kala qaybiyey oo baarlamaankii 9aad habraaca yani dib eegista loo raacaya wuxuu ahaa qaybaha ku aadan yani qodobada muxuu ahaa dastuurka ee keliya u baahan dib eegis farsamo oo ku darid iyo kadhimin iyo hagaajin iyo maaragtay qurxin iyo kala habeyn iyo waxaa in lagu hormaan ka shaqeyno
kuwa laakiin u baahan wadaxaajoodka siyaasadeed oo xasaasiga ah inay marka hore kasoo heshiiyaan hogaanka siyaasaddu markaa kadibna laku soo celiyo aan habeyntoodii iyo maaragtay muxuu ahaa luqad dastuur u bedelkooda aanu maaragtay ugu darno. hadda marka waxaa soo dhamaaday wixii farsamo ahaa, keliya waxaa soo haray intii u baahnayd in marka hore wadaxaajood siyaasadeed maxaa laga yeesho oo meel ay isla dhigaan maaragtay hogaanka siyaasadda. intaas oo ah keliya 14 qodob. dastuurku wuxuu ka kooban yahay sida hadda aanu maaragtay usoo dib eegishahaas badan muxuu ahaa 4 jeer aan ku noqonay. waxaa natiijadoodii ugu dambeysay waan kugu soo kooban yahay dastuurku 157 qodob. marka 157daas 14 keliya oo kamid ah ayaa u baahan wadaxaajood siyaasadeed. inta kale oo dhan marka waa diyaar maaragtay waa soo diyaarinay. keliya waxay u baahan tahay in ay maaragtay dowlad goboleedyada oo muddo badanna aanu tagnay waa mahadsantahay gudoomiye. waan kugu soo noqonayaa si fiican baan u fahanay. waan kugu soo noqonayaa si fiican baan u fahanay 14 qodob. waayahay aad baad u mahadsan tahay. waxaan aadayaa doctor Afyare Cilmi oo Dooxa jooga. doctor Afyare soo dhawow. marka xigtaay dastuurka Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliyaba wax badan baa ka qortay, cilmi baarisyo dhowrana qayba ka aheed oo laga sameeyay 14 qodob. hadda gudoomiye Maxamed Daahir Afrax uu inoo sheegay inay yihiin waxa kaliya ee dhiman. maxaa ka og tahay? maxaase ugu waaweyn oo u asal ah? horta waa mahadsan tahay. waan salaamayaa xildhibaan Maryam iyo Dr. Maxamed Daahir oo maasha Allah yani kulli muddo dheer waxaan ka shaqeynayay iyo adiga iyo dhammaan dhageystayaalkaba. arrinta koowaad waxa waaye dastuur samayntu waa process ama maaragtay hab la marayo iyo nuxur oo ah waxa markaa la isku hayo oo issue-ga la rabo in la xeeriyo. arrimaha marka wadadii la soo maray gaar ahaan hadda sanadkii 2012 ka horeeyay ilaa 2011 habkii wax loo sameeyay waxaa ka dhashay culaysyo badan oo soo raacay dastuurka laftirkiisa oo arrintaasi ay dhalisay markaas inaan arrimaha qaarkood la xallin oo markaa dhowr qofood oo uun mas-uul aheed oo dastuurka mas-uulka aheed ay siyaabo kala duwan u tasarufeen. arrintaas ayaa waxay keentay inuu dhasho dastuur aan u baahan mar kale in lagu noqdo. waayo haddii markii hore si fiican looga shaqayn lahaa waxaaba laga hadli lahaa keliya sida loo baasgaraynayo oo dadka loo bandhigayo. arrinta ah marka maxaa 14 qodob ama 9 qodob waaye waxay ku xiran tahay cidda aad weydiiso. haddaad weydiiso guddigii ay xildhibaan Maryam madaxda ka ahayd 9 qodob ayaa ugu muhiimsanaa. weliba option 1kooda ama khiyaarkoodii koowaad qodobada ay sheegeen oo ay kamid ahayd maaragtay power awood qaybsiga oo ay kamid ah caasimada oo ay kamid ahayd sanad ama aqalka labaadna loo baahan yahay awoodaha madaxweynaha iyo prime ministerka iyo maaragtay cadaaladda heerka judiciary-ga waxay noqonaysaa mid oo ay wada leeyihiin labada level mase dawladda dhaxaawadaysa. markii la fiiriyo runtii aniga conclusionada ama gunaanadyada ay Maryam iyo gaareen way cadcadaayeen. qoladan cusub kooda oo 14 qodob ah ayagana way badiyeen oo kuwa kale ku dareen. laakiin waxaa jira qolo kale oo aan hadda cidna wax weydiin oo ka maqan oo ah baarlamaanada ama dastuurada maamul goboleedyada markaad akhriso 14 qodob iyo 9 qodob labadaba ma ahane wax kasta ayaa la isku haystaa. waayo waxay maaragtay xeersanayaan xataa 4 qodob oo maaragtay dawladda article 54 oo siinayo oo gaarka u siinayo gobolada waxay ka leeyihiin 4taas qodob maxaa kamid ah Dr. Afyare? 4taas qodobna xasuusi dawladda dhexe gaar u ah arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinada iyo citizenshipka iyo lacagta. 4taa qodob markaad eegto ood mid u fiiriso dastuurada 5 gobol maamul goboleed Somaliland waa nidaam hadda ayagu u gaaraho madax banaan oo dawlad gaar ah raadinayaan. 5taan maamul goboleed markaad eegto de baarlamaanada iyo dastuurada awoodaha ay siinayaan inay
xiriiro caalamiya iyo heshiisyo caalamiya ay ratify garay karaan inay madaxweynadoodu geli karaan iyo inay dhaqankoodaba ka muuqato inay meelahaas dawlada la macaamilaan iyo waxaasoo dhan waa arrimaha dibadda. tan muwaadanada waxaa ka muuqata inay dalka mid walba qaybta ay ka leedahay ay u ogoshahay keliya xuquuqda siyaasadda. soo haddaa hirshabeelle ka imaato waa inaa hirshabeelle kasoo jeedaa si aa mas-uuliyad ooga qabato. midda kale oo maaliyadda qaaraa bangiya dhexele qaaraa daabaca kara lacag waxyaalo noocaas oo kaleeta ah. midda kale oo defensigana de ciidamo ka baxsan police ayaa waayo cirkan wuxuu u ogol yahay police keliya ayay maaragtay samaysteen. dhinaca kale isla articleka 4 qodob siinaya dawladda dhexe wuxuu leeyahay ha laga doodo dhammaan oo ha laga negotiate gareeyo arrimaha kale. dawladda dhexena way xeersataa ayadoon laga negotiate garayn beeray leedahay kalluumaysiga leedahay waxay rabtay iska samaysaa. dawladaha goboladuna way xeersadaan. markaad eegto maaragtay golaha wasiirada golaha wasaaradaha waxaa arkaysaa meeshan inaan waxbaba heshiis laga ahayn. marka qoladaasna haddii la weydiiyo waxba heshiis lagama aha. qoladan cusub oo cabdi qaybdiid iyo maxamed daahir ay madaxyada u kala yihiinna 14 qodob bay sheegeen. xildhibaan maryanna 9 qodob bay sheegtay. ummadda inteedii kalena waxba lamaba weydiinba weli oo ayagana laga yaabo inay wax kala sheegi lahaayeen. waayahay maxamed daahir waan ku noqon doonaa waana weydiin doonaa 4 qodob sida aad ka tiri maahane in wax badan oo kale in la isku hayo oo u baahan dawlad goboleedyada iyo dadka intoodii kalena inay qayb ka yeeshaan. laakiin xildhibaan Maryan Cariif ayaan u baaqayaa markan. xildhibaan baarlamaankana muddo dheer aad ku jirtay, dastuurka waa adiga muddo dheer ka soo shaqaynayay, baarlamaanada dawlad goboleedyadana xog ogaal baa u tahay arrimaha dastuurka markii laga hadlayo. sida maxamed daahir gudoomiyaha guddiga madax banaan uu sheegay 14 qodob ma ahane maxaa isleedahay ama aad la wadaagtaa dooda afyare ee ah 14 ma ahane wax walba oo kalena in weli la isku hayo oo ay baahan tahay wada hadal iyo xal kale. bismillaahi raxmaani raxiim. horta dastuur annaga horaan u ahaa jirnay waana ku soo shaqaynay horaan ugu soo shaqaynay haddaan Soomaali nahay. laakiin markaan dastuurkii hore oo annaga aan haysanay iyo midka hadda aan haysano shaqo isku male. dawladnimada hadda aan haysano iyo dawladnimada berigaas aan haysan jirnay shaqo isku male. dawladnimada cusub waa federal system of government haysana federal adiga maxaa tahay federal waxaan ahay dawlad dhexe ayaa jirta laakiin dawlado oo goboleedyo iyaguna jira oo awood leh. marka awoodahaas oo dawladda federaalka iyo dawladaha federaalka ka dhexeeya ayaa keeni doona dastuurkan hadda gacanta lagu hayo qaska ugu weyn ayaa keeni doona. xilliga annaga aan ka shaqaynaynana weliba aniga si fiican aan ila dagaalamay maxaa yeelay waxyaabaha qaar ilamaba xumanin waaba ila xumaayeen laakiin shaksi waa warkeyga aniga keliya arrintaas xisaysa ilaa waa loo wadgaraynaa annaga guddiga dad tiro badan aan ka koobannahay. laakiin xataa waxaa idaysay qolooyinka gobolada ka yimid waxaa xataa dhibaysay inaan ra'yigayga xataa dhiiba karo. marka dastuurka dhibaatada soo haysata ama haysa doonta ama hadda maxay aheeday ay ku jira waxay noqon doontaa arrimaha ku saabsan federaalka nagu cusub oo aanan garanaynin annaga hore u aan jirin waxa ka imaan doono oo maxay aheed awoodaha federaalka iyo awoodaha centralka siday isu qaabili lahaayeen ayay noqon doontaa dhibaatada ku dhici doonta dastuurkan iyo dalkan labadaba qabsan doonta. arrimahaas marka meesha Soomaalidu ay leedahay ma dastuurka la dejiyo ma dastuurka la boogsiyo ma dastuurka la dhameeyo aniga waxaan leeyahay war dastuurku caga tartiibana waa la mina waxaan ilaa ka fahmo oo la isla maxay waayahay. laakiin xildhibaan Maryan muddo intee leeg intaan ka badan howsha dastuur sameyntu cartay ka soo bilaabatay 8 sano ka badan dib u eegis baa ku socota. intaa ka badan miyaa weli loo sii cagdhigayaa macnaha maxaa intaa ka badan loo sugi karayaa oo aanan 8 sano iyo maxaa lagu qaban waayo weli loo baahan yahay in la sii xaliyo. haddan ku macnayna iga dhageyso haye 8 sano annaga sheegay guddiyada wuxuu sheegay in guddigayga madaxda aan ka ahayna wuxuu isu sheegay guddiga maxamed hadda maxay ahayd dhex shaqaynayeen waxay isu sheegeen 8 sano ma anfacayso maxaa yeelay maba lagala hadlin interested party ma lagala hadlin in la tago waayo loo tago maxay gobolada la tago dawladaha federaalka loo tago la yiraahdo haye maxaad nacdeen maxaad jeceshiin maxaad rabtiin maxaad soconay maxaad soconay
intaan la geyninba baarlamaanka inta la geeyo aan ansixin iyo lala doonin marka hore waxaa la rabaa dadka shaqadooda ay tahay inaan la soo heshiino waayo oo wax heshiis laysugu yahay oo laysku afgartay oo dhinac looga soo wada jeedo aan markaas isla wada qaadno isla wadno waxaan kuugu diraa dastuurkan dastuuradayna hore marka dawla kiila waayahay udhexaysa waxa dowlad goboleedka powerka la siiyey haday joogtaa haddaan annaga darasameynta baarlamaanka inta geyno aan ansixin u dirno waayahay gudoomiye xalimo waan kugu soo noqon doonaa bal markan aanu eegno dhegaystayaasha iyo waxyaabihii ay ka dhaheen su-aalihii aan weydiinay dhegaystayaasha su-aalahoodii iyo aragtiyahoodaan dhegaysanaynaa. السلام عليكم بي بي سي مقعيق ومحمد شيخ حسن إسماعيل محمد شافي oo ku sugan gaalada caabud waqi gobolka galgaduud Soomaaliya hadii aan fikirkayga ka dhibto qodobka dooda jimcaha galabtay ku aadan dastuurka dalka Soomaaliya ee wali hadda aan la qabyo tirin muddo ku dhawaad 8 sano runtii waa nasiib darro weyn oo ku habsatay madaxda Soomaaliyeed waxayna ila muuqataa inay ku gudban yihiin arrimo isku sidkan taasoo ay kamid yihiin madaxda Soomaaliyeed maxaafad iyo mucaaradba oo wax walba ka hormarinaya masayrka danahooga gaarka ah waxaase looga gudbi karaa iyagoo sameeya isku tanaasul iyo isku duubni siyaasadeed oo dunasada u kala sarreysa ayaa loo kala guraayay marka hore waa in doorasho lagu wada qanacsan yahay ay dalka ka dhacdo kadibna loo dhaqaaqo sidii dastuurka dalka loo dhameystiri lahaa loona qabyatiri lahaa. Assalaamu calaykum magacaygu waa Maxamed oo jooga magaalada Hargeysa waxaan weydiinayaa martida sharafta leh federaaleynta Soomaaliya ma caqabad ayay kala kulantay mise faa'iido waxa kale weydiin lahaa dastuurka Soomaaliya inuu qabyo si ahaado ma la oran karaa danbaaba ku jirta oo dadka Soomaaliyeed qabiilay u kala dageen dastuur ayay samaysteen hadii maanta si kaliya dastuur loo qabyo tiro oo la yiraahdo ku dhaqma ma la oran karaa in caqabad tan taagan ka weyn inay soo bixi karto Soomaaliya maxaa u dana ma in dastuurku qabyo si ahaado mise inaanu si ahaan. magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi ka soo hadlaya magaalada Kaam Cumar oo ka tirsan degmada Gaashaamo martida barnaamijka waa salaamaya iyo dhageystayaasha iyo daadiyaha barnaamijka Maxamed Axmed Rooble hadii intaas ka gudbo aragtida ku aadan dastuurka Soomaaliya ee muddo 20 sano ku dhow qabyada ah runtii anigu waxaan aaminsanahay in dastuurkan uu yahay mid guud ahaantiisaba aan fiicnayn waayo waxaan maqlaa markasta oo isqabsi dhaco ama muran dhaco siyaasiyiinta mid walba oo qodob dastuuriya uu soo dariishado isagoo ku eedeynaya kale inuu maartay dastuurka jabiyay hase ahaatee waxaynu arkaynaa dastuurka in muddo 20 sano la qabyo tir leeyahay dawlad kasta oo ku ololeysay dastuurka wax ka qabanaysana ay aakhirka ku soo dhamaato iyadoo la dastuurkii waxba kama qaban ee baarlamaanka dambe ayaan ku wareejinaya haddaba la joogaa waqtigii gabiyahanba dastuurka daaqada laga tuuri lahaa ee Soomaaliya loo soo magacaabi lahaa dastuur cusub ama loo qori lahaa Soomaaliya dastuur cusub wadnaantihiin BBC Soomaaliya. Assalaamu calaykum BBC magacaygu waa Baxsan Marxadlan waxaan ka soo hadlayaa dalka Djibouti hadii aan dooda garabto xalada fikirkayga ka dhigto dastuurka Soomaaliya ee qabyada aanan xilligan ana la dhameystirin mahantii waxa dib u dhac amba ku keenaya amba u dhameystirin waxa u sababa anigu dhigi karaa burburka Soomaaliya ka dhacay dawladihii isku xigay ee ku meel gaadhada ahaa ee dalka soo maray in wali hadan waxaad moodaa inaanan loo jeedin in dastuurka la dhameystiro waayo waxa caqabad ku ah federaalka Soomaaliya runtii waxay ila tahay aniga inuuna federaal hawna qurux badnayn amba federaaleysan waayo waxa federaalka Soomaaliya xilligan jiro caqabad ku yahay dawladnimada iyo dastuurka in la dhameystiro lahaaba aad ma santeen. Assalaamu calaykum BBC magacaygu Waliyaas Umar soo jooga magaalada Qarbeeh dawladda deegaanka Soomaalida runtii dastuurka Soomaaliya inuu intaas dhan u ahaado qabiyo runtii waxa ku sameeyay baan islaahay xukuumadaha xilliga kala duwan soo maray dalka oo aan daacad ka ahayn in la dhameystiro dastuurka isla markaana arrimo gaar ah iyagu kale xukuumad kasta markaysa soo sharaxaysa waxay afka baarkiisa ku oranaysaa waxaan dhameystiri doonaa dastuurka Soomaaliya waxaan ummadda u dhigi doonaa sharci iyo qaanuun caalami ah oo ay ku dhaqanto taasi la hadda ma dhicin waxaan u arkaa in cid kastoo meesha soo martay aysan daacad ka ahayn in la dhameystiro caqabado badan way hortaagan yihiin waxaan leeyahay in la dhameystiro dastuurka waxa hortaagan qabaa'ilada Soomaaliya oo aan ilaa hadda ka heshiinin colaadii hore u dhaxmartay dib u heshiisiintu waa mid kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee hortaagan inuu dastuurku dhameystirmo waxyaabo badan oo aan laga heshiinin baa jira hadda sidii loo qori lahaa waxaan anigu isleeyahay in la heshiiyo dastuur Soomaaliya loo qoraa suuragal ma aha ummaddu kolka hore waa inay heshiiso markaas ayay wax qoran kartaa waan idin salaam.
aad buu u mahadsan yahay dhegeystaha wuxuu ugu dambeeyey dhegeystayaashii codadkooda inoo soo duubay welina waxaad dhegeysanaysaan dooda jimcaha waa BBC Soomaali barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo qadkana ku jira Maxamed Daahir Afrax gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ah gudoomiyihii hore ee guddigii dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Dr. Afyare Cilmi oo wax ka dhigay jaamacadda Qatar dhowr iyo 20 daqiiqo ee barnaamijka nooga dhiman waxaynu rabnaa markaan inaynu diiradda ku saarno 14 qodob qeybaha kamid ah ee asalka ah ee ugu waaweyn oo ay dooda weyn u baahan iyo wada xaajoodyada adag iyo sida xal loogu heli karayo markaan waxaan ku hormarayaa gudoomiye Maxamed Daahir Afrax gudoomiye 14 qodob oo dhan ma wada falanqeyn kareyno mana wada qaadaa dhigi kareyno marka 5 qodob oo aad isleedahay waa kuwa ugu miisaanka culus ee u baahan wada xaajoodka iyo heshiiska siyaasadeed ee lama horaankana u ah in dastuurka la qabyo tiro inoo sheeg waa taal wanaagsan waxa weeye guud ahaan dastuurka markii loo kala qaybinayay baarlamaankii sagaalaad habraaca uu dejinayay oo aan lahaa wuxuu kala qaybiyey qayb farsamo iyo qayb wada xaajood siyaasadeed u baahan qodobadii uu wada xaajood siyaasadeed u baahan yihiin la tilmaamay 9 bay ahayn sidii Dr. Afyare Cilmi ku dhuftay waa runtiis dastuurka guddiisana waxaa ku xusan 3 qodob maarka oo kaliya inay yihiin kuwa u baahan dastuurkii dastuurkan qabyo qoraalka kumeelgaarka waxaa ku qoran 3 qodob in ay u baahan yihiin wada xaajood siyaasadeed saddexdaaba inoo sheeg marka وقضبك أفرتني أفر وكسابسن أبود غيبسي أنا أبود وذاك قضبك كنتني أفر وكسابسن خلال وذاك يقضبك بقول لواتن يلا وكسابسن نظام كمالية سلعات عن كوي كوضنا انت ويلي سغال كاسا لفيماني وحلو قدري لحكرة وعيبونا معطي وباهم فبعضمان كاسو قدري markii aanu aad u dhaxgallayna waxaan noo soo baxday qodobo kale oo iyaguna u baahan wada xaajood waa marka sida aad sheegtay waa meel saaqay 14 ku soo baxeen marka dambaysa marka kuwaas marka sida aad sheegtay kulli lagama wada gaari karo laakiin tusaale haddaan idinka soo qaado waxaa kamid a qodobka 49 oo ku saabsan qada iyo xubnaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah waxaa kale oo kamid a qodobka 47 oo ku saabsan arrinta yani maaragtay xasaabka iyo muxuu ahaa doorashooyinka iyo arrimahaas ku saabsan iyo xadiyadooda kuwaasaa maaragtay masalan waxaa kaloo kamid a qodobka 46 oo ku saabsan nidaamka madalaada shacabka marka waxaasoo dhan sida muxuu ahaa la wada garan karo waa arrimo siyaasadeed waana arrimo u baahan wadaxaajood kuwa kalena waa saas oo kale marka saasay waxay ku noqdeen yani ay noo soo baxday 14 qodob inay u baahan yihiin waxaase jirta oo aan ku raacsanahay Dr. Afyare in ay jiraan 14 xataa qaar kasii baxsan oo muxuu ahaa saamileyda qaarkood saamiley waxaa loo jeedaa waxaa ingiriiska lagu yidhaahdo stakeholders ay oran karaan ayagana maaragtay inay ra'yi ku yeeshaan oo ay oran karaan maaha farsamo keliya maaragtay siyaasad bay soo galeen waa jiri karaan laakiin inta baaritaankii iyo ofiisigii badnaa nooga soo baxday annaga iyo muxuu ahaa khubaradii aanu kaashanaynay oo ahaa khubarada dastuurka oo magaranaysaa sharci yaqaanada iyo waxa weeye 14 ayaa maaragtay muxuu ahaa ugu muhiimsan kuwa ugu sii daran haddaad maaragtay su-aasha aad weydiisay waxa weeye kuwan ku qoran dastuurka qudhiisa oo 3 ah oo aan sheegay iyo kuwa ku saabsan qaabdhismeedka dowladda oo 3 laamood ee dowladda ee kala ah xeer dejinta fulinta iyo garsoorka 3daas oo 3 cutub oo 3 cutub oo 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 4 cutub yani ku aadan iyaguna waxay kamid yihiin marka kuwa ugu waaweyn oo maadsan waana kuwii aanu ka keenay xulashooyinka markii aanu muxuu ahaa baarlamaanka sagaalaad soo shaqeynay mid walba 3 xulasho waayahay 3 maaragtay kala doorasho oo inay go-aan ka gaaraan
muxuu ahaa family oo baarlamaanka ugu dambeeyo aanu usoo bandhignay marka qodobadaasi marka sidaasay kala yihiin. waayahay muxuu ahaa gudoomiye maxamed daahir gudoomiye waa mahadsan tahay. sida muuqata afyarana uu sheegay adiguna aad sheegtay 14 maahane waxay u eg tahay buugga dastuurka oo dhan in laisku wada haysto oo waxa heshiis lagu yahayba ay yar yihiin. marka waxaan rabaa xildhibaan maryan cariif inaan weydiiyo dastuurkii muddada intaa la eg laga soo shaqaynayay ee siyaasiyiintii iyo bulshadii iyo dadkoo dhan ay ku wada intaasoo guddi loo sameeyey 10 sano ku dhawaad shaqadiisu ay socoto ka horna howlihiisa qaybo ka mida la bilaabay in weli uu qabyo yahay oo weli waxa 14 qodob maaha xitaa intii kaleba heshiis laga ahayn maxaa ugu wacan maxaa keenay sababta arrinka maxaa keenay? bismillahi rahmaani rahiim horta Soomaali haddaan nahay annaga hal dastuuraan hore usoo yeelanay oo 60kii aan yeelanay dastuurkii ku xigay waaye dastuurkan hadda aan ka shaqaynayno Soomaalida marka wax horta dastuur la yiraahdo ra'yiba kama qabno haddaan Soomaali nahay dadka Soomaalida ama caalim qofku ha ahaado ama reer magaal ha ahaado ama reer baadiye ha ahaado ama jaahil ha ahaado sidaynaba dastuur ra'yi kama qabno kulligayna waa Soomaali oo dhan dastuur waxaa la rabaa dastuurku inuu leeyahay waxyaabihii dalkan dadka lagu kala eli lahay dalka lagu dhisi lahay hawshana lagu kala bedeli lahay lagu kala badbaadi lahay haye maba jiraan waxaas cid oo Soomaaliyeed waaba yartahay hadday jirtana waa 1% ama wax ka sii yar waaye meeshaan anaga dastuur aan haysan jirnay dawlad waxaan qad jirnay awal mataqaanaa maxay aheeday muxuu ahaa unitary system aan aqoon jirnay federal system aan loo keenay federal systemka iyadoo nala barin ayaa dastuurkii naloo keenay dastuurkii markii naloo keenay maalin ilaahay keena dastuurka intaan fadhi jirnay oo ka hadli jirnay waxaan isu qabsan jirnay gobol aan isugu dhigi jirnay isu qabsan jirnay maxaa yeelay aniga gobolkeydaan u danaynayaa adna kaadiya u danaynaysaa maxamed midkiisii u danaynayaa maxay aheeday walaalkay sayarana kii kaleta u danaynayaa marka meeshaan waxaa rabaa dastuurku waa inuu dastuur naga dhexeeyo yahay oo qof kasta dareemayo qaybtiisa ama wixiisa inay ku dhex jiraan meesha dastuurkan ka qalban yahay waxa waaye dastuur federal oo kii unitariga ay ka duwnaay oo dawlada federaal ay jiraan oo ay awood leeyihiin dawladaha federaalka waaye dastuurkan shaqadiisa aniga hadda idin sheegaa weli kow ma joogto weli kow iyo sis ma joogto maxaa yeelay maba isku afgaranin meesha aan u soconno finalka meesha u soconno goolkayna meeshuu yahay maba laysku afgaranin maxaa diiday in laysku afgarto xildhibaan maryan maxaa diiday in laysku afgarto ilaa 8 sano iyo ka badana laga soo shaqaynaya dastuurka aan dhameeyo isku afgaradku ma ogtahay gobolladay jira qofkaan baarlamaanka xubintaan baarlamaanka ugu jirto gobol hebel ama qabiil hebel waxba ma tarayso is-afgaradka is-afgarawaagu wuxuu jiraa gobolladii jiraa dastuurkan gobollada in looga doodo lagu celiyo waay haddii la rabo waxa meesha ku dhigan inay cilmi noqdaan laakiin annaga waa soo qornay intaasaan ku darnay intaas maxamed waxay dhaheen 14 annagu 9 aan dhahnay dastuurka awal wuxuu yidhi 3 uu ka sheegay maya waxaas dadku ma ogola mana naga dhegaysanayaan mana naga maqlaayaan waxay u baahan tahay arrintan si fiican inta salka dhulka loo dhigo gobollada la hor dhigo ayada lagala xaajoodo ama aan dastuurka faraha ka qaadno iska dhaafno waaya aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir afrax baan ku noqonayaa gudoomiye waan ogahay adinku guddigiinu guddi siyaasadeed maaha guddi farsamo oo madax bannaan baad tihidiin laakiin haddana weydiinta xildhibaan maryan cariif la xiriirtay ah arrintani taladeedii iyo go-aankeedii maamul goboleedyaday jirtaa baraarug intee la eg baad u leedihiin waxa weeye maamul goboleedyadu waxay qayb ka yihiin bulshooyinka Soomaaliyeed iyo hogaankeeda iyo hay-adaheeda ay tahay kulligood inay ka heshiiyaan dastuurkan oo ay wada samaystaan waataan lahaa dastuur waxaa lagu tilmaamaa heshiis bulsho marka bulshadoo dhan inay ka heshiiso wey dowlad goboleedyaduna waa meesha ay bulshada inteedii badnayd ay jiraan iyo wixii ay hay-adihii ay doorteen marka waa run yani qayb bay ka yihiin dowlad goboleedyadu meelaha
jiitanku yani sababta jiitanku meelaha uu ka yimi laakiin uma koobna waxa weeye inta ugu weyn meesha ay ka imaanayso waxa weeye marxalada dalkeenu ku jiro burburkii dhacay iyo dhibaatooyinka ka abuurmay iyo yagleelkan dib u yagleelka dawladnimada oo muxuu ahaa naga adag yani maaragtay weli ku taagnayn iyo muxuu ahaa khilaafaadkii iyo dagaalkii sokeeye iyo kala aamin bixiyey iyo muxuu ahaa kala shakigii iyo waxaas oo dhan oo taagan yani waxaas oo dhan baa caqabad ku ah muxuu ahaa oo dhagxaanta hor yaalla oo u jiitamayo yani dastuurkan markaa goboleedyada si yani toosa marka ay timaado waxa weeye khilaafaadka siyaasadda guud ahaan oo caqabada ugu weyn oo yani dastuurka jiitankiisa iyo dhamaystiri la-aantiisa yani caqabadaha hor yaalla caqabada ugu horeysa yani ayay qayb ka yihiin khilaafaadkaasi marka reer walbay leeyihiin dawladii hore matalan waxaa ugu weynaa khilaafaadkii ka dhex taagnaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaareyaashii maaragtay marba mid imanayo marba mid laeliyay inta laisku mashquulsan yahay oo waxaa lagu jeeday baarlamaanka ku mashquulka yahay mooshin iyo maaragtay muxuu ahaa ra-iisul wasaarashii iyo mid iyo waxaa gudoomiye kulmay marka khilaafku wuxuu ka dhextaa baarlamaanka iyo magaranaysaa xukuumanka baarlamaanka iyo maaragtay iyo madaxweynaha hadda marka maxaadan ugu dambeysa oo dawladan hadda xilligooda sii dhamaanaya khilaafka ugu weyn yani waa kan kasoo dhex taagnaa maaragtay dowlad goboleedyada iyo dawladda dhexe federaalka ah waxaas oo dhan oo khilaafaad ah caqabada ugu weyn oo dastuurkan maaragtay dhamaan waayey waayo wixii ay ahayd inay kasoo heshiiyaan qolyahaas isku khilaafsan maaragtay waxyaalahaas kale oo siyaasada ah ayaa caqabad noqday marka caqabadaasina waxaa ka dhalanaysa waxaa la kala saari kari waayey siyaasad maalmeedii laisku hayay oo laisku khilaafsanaa iyo dastuurka oo ka sarreeya waxaa dastuurka in loo arko waxaasoo dhan wax ka sarreeya oo arrin masiiri ah oo masiirkii ummadda iyo masiirka ubadka soomaaliyeed soo socda ah sidaa darteedna laga dhex saaro siyaasadan iyo siyaasad maalmeedkan iyo waxaa laisku haysta meel dhinac loo rogo loo duwo horta laga heshiiyo maaragtay yani qodobada masiiriga ah oo dastuurka kusaabsan marka waxaa kale oo caqabada oo iyadana maaragtay ay taas ka imanaysaa yani mushkiladaas muxuu ahaa hogaamada heerarkaa kala duwan oo hogaaminta waxa weeye bulshaweynkii ku dheedii ayaa laba mushkiladood ka jirta oo midna tahay muxuu ahaa kala shakigii iyo muxuu ahaa istuunkii weli taagan oo waxaan ku dhaca runtii aad aan ugu riyaaqayay oo run sheegay inankii kasoo hadlayay muxuu ahaa jigjiga maxaa codkii aad soo duugteen oo lahaa dib heshiisiinta macnaha sida ay ugu tahay ummaddu inay heshiiso inay u tahay maaragtay dastuurka maaragtay asaas u tahay marka dhinaca waxa weeye ummad heshiisa ayaa dastuur wada samaysan kara waa la oran karaa dhinaca kalena waa loo dhigi karaa oo waxa weeye ummad si ay u heshiiso waa in ummadda dastuur yeelata dastuurka kala hagi lahaa maaragtay marka heshiisiinta ummadana haddaan inta dastuur badan yahay in la heshiiya waa adagta waya waa la oran karay maaragtay kunta iyo kee soo horeeya iyo digaagada iyo digaag garanaysa waaya gudoomiye aad gudoomiye aad baa umahadsan tahay waan kugu soo noqonayaa gudoomiye waan kugu soo noqonayaa doctor afire cilmiyaan aadaya doctor afire sida muuqata soomaaliya waxaa soo kala hormaray dastuurkii iyo federaalkii hirgelintiisii oo sida muuqata dowlada goboleedyo ayaa dhismay dastuurkiiyo qabyo ah mashaakilkuna sida maanta muuqata waxaa qayb ka ah marka dowladaha dhismay iyo dastuurkan la qorayo sidii la isu waafajin lahaa sina usoo kala hormaray arrimaha siyaasadeed oo khilaafaadka ah oo maxamed daahir uu ka dhawaajiyeyna mashaakilaad jiri doona waaye oo xalkoogu hadda degdeg uusa u muuqan sidee arrimahan inta la isugu soo xeeriyo marka looga dhex dabaalo karaa oo la isugu dheelitiri karaa anigu hadda waxaan ka tirsanaa macadka heritage waxaan sameynay cilmi baaris ku saabsan arrintan 2016 ayaan sii daynay mid kale oo hadda ay ahayd in garoowe la geeyo oo dhammaada ayaa jirta oo taa kaabaysa marka waxaan eegnay dhammaan guddiyadu waxyaalaha ay soo saareen
guddigii xildhibaan maryan hogaaminayay 3 report ay soo saareen oo khiyaar 1 iyo 2 iyo 3 ah guddigan oo asna soo saaray report iyo dastuurkii oo revise gareeyay iyo dhammaan dastuurada gobolada marka waxa noo soo baxay runtii in culaysku uu ka ballaaran yahay inta loo filaayo oo marka la hagaajiyo processka lagu wajahayo waxa ugu daran marka arrimaha ugu daran waxa waaye arrinta Somaliland iyo arrinka la xiriira qaybinta awoodaha waan xildhibaan maryan la qabo arrintan federaaleyntu waa mushkilad inteeda la eg waayo adduunka ama dawlado gobollo ayaa dawlad dhexe sameeya ama dawlad dhexe ayaa dawlad goboleedyo sameeysa federalization process saas u shaqeeya annaga taayadu waa wixii oo dhan hal mar la isla sameynaya marka mushkilad meeshaas ka taagan marka labada arrimood mar walba xataa marka awood qaybsiga lagu heshiiyo oo referendum loo qaado oo laga heshiiyo haddaan Somaliland joogin dastuurka qabyo ahaanaya oo horta ma qabyo baxaya marna marka arrinta marka hadda sida loo kala hormarinayo waxa ila tahay aniga marka koowaad in la ballaariyo guddiga dastuurka ee sameynaya oo guddigii hore ee maryan madaxda ka ahayd iyo guddiga hadda jooga iyo kan imaan doona iyo civil society iyo aqoonyahan wixii la heli karo haweenka iyo gaar ahaan gobolada oo baarlamaanadooda laga keeno guddiyadooda dastuurada intaas inta constituency assembly laga dhigo in la yiraahdo ma baxaysaan ilaa dastuur final aad sameysaan markii intaa ay sameeyaan kadib baarlamaanka caadiga loo geeyo wadada hadda aan isleeyahay waa ugu sahlantahay waa la mari karaa waa taas lagana ilaaliyo dastuurkan dad yar ay og yihiin oo in yar tuqfashooda ku jira oo aan secrecy-ga lagu wado aan sina arrintaas yani looga gudbo oo waxa miiska la soo saaro oo laga doodo yani waxaan tusaale ka siinayaa arrinta markii guddigii maryan iyo ay madaxda ka ahaayeen qodobka 8aad waxay ku dareen in gabdhuhu ay citizenship-ka u gudbi karaan caruurtooda guddiga dambana way ka reebeen qodobkaas waxa keenay wax kala ma guddiga baarlamaanka ee dambe gabribo kuma jirto guddigii horena 3 gabdhood baa ku jirtay marka madaxayna ka ahaayeen waliba marka waxa meesha ka muuqanaysa ka qaybgelinta dadka stakeholderska inay aad muhiim u tahay oo la ballaariyo oo horta guddigan baarlamaanka kaliya oo waxa dhanna ku fiirinaya baarlamaanka dastuurkan kaliya waa in laga gudbaa oo arrintan si dhaba loo eegaa talabaad waxa waaye in lacagta waxa lagu sameynayo ee miisaaniyada dalka ka timaado qaali ma aha dastuurkeenu wuxuu noqday kii ugu waqti dheera oo ugu qaasho badnaa oo loogu faham xumaa cid fahamsanna ma leh in yarta sidaas ay doctor Maryan ku sheegayso waaye wax fahamsanaaba iska yar marka intaasaan uga baxayaa si aan dood dadka kale ula wadaago waaya xildhibaan Maryan Cariif sidee la isu waafaji karaa sida hadda muuqata dawlad goboleedyaha dhismay dawlad goboleed walbana dastuur u gaar ah ay leedahay oo iyadu ay gaar u qoratay kii guud ee federaalkana waa kan wili qabyada ah iswaafajinta labada dastuur mashaakil dhiman oo na sugaya ma yahay ومشكلة وين ومسؤول كم مشاكل كصومالية قبل واحد ثاني دولة جولات كبير بيجي هاي أو يبي إلا طلع إيه أيها هر مرتين مركزات دولة بتحت يستنقل ولكن معي وحواي لا بدي أبغى وحاه الرئي دولة جولات يا الرئي ماشان مشكلة التابل نمبر 1 يا نمبر 2 يا نمبر 3 وحواي حدان ربنا سيستم فيدرال إلى الآبي دولة جوهرية أود فينا دولة بتلحنا أود فينا فرط وإن أنت ستيك هولدرز أهل الماشي سوق تبادل أرنتا صور هذا الشيء معايا يا دولة جوهرية الدستور كان وحنا كسارسن وإذا فدرال كسارسن إنه أيد اللي يجي أمثيله أنه وحنا أمثلنا إلى أنه لا ما دكتور إذا فدرال جوهرية كان أمثلنا ما بيفهم شيء هو كمرة هوراتنا إفهمنا واي oo mowqif midaysan oo anaga aan ka wada diinayna aan yeelano markaasna dawladayna dhexe inta awood siinayno iyo dawlad goboleedyadayna inta awood siinayno iyo sida awoodaha loo kala qaybsanayo marka hore anagoo iskaga raaliya horta halkaas in laga dhoofaal rabaa oo tareenka laga raaco lama samaynin gadaala laga soo raacay wareerkaan ku jirnaa sidaana lagu jiraa sidee hadda meesha la joogo looga dhaqaaqi karaa oo wadadii saxa ahayd loo aadi karaa xildhibaan Maryan waxaa aniga waxay ila tahay
in leesku dowlad goboleedyada annaga maba la hadlay duruuftayna aniga horta xilligaydii dowlad goboleedba lama aanan hadlin dowlad goboleedyada inaan la hadalno qasab waa waxaanay wax ku leeyihiin federal system markii la yidhi ayagaa ku dhex jira in federal system inta ku guurna aan unitary u guurna waa war oo kaas waaba naqaanshiin la yeeli jiray inaan federal system aan la nimide qaybna waxaa iskale dowlad goboleedyada aan chance ay kaga qayb galaan dastuurka siina waa daawo kala dhan waaya maxamed daahir hal ma noqon karaysaa in dastuurka hadda qabyada ah 14 qodob ee aad soo saarteen ee u baahan heshiiska siyaasadeed iyo inta kaleba in marka ugu horeysa loo gaar yeelo oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaga inta loo gaar yeelo gaar isugu arkaan gaar uga wada hadlaan gaar uga heshiiyaan ka hor intaanan bulshada iyo meel kaleba la geynin oo ayagoo ka heshiisa taa waqtiga dastuurka galay ma soo koobaysaa oo hawsha ma idin fududaynaysaa ma dadejinaysaa طبعا markii horeba dee saasay abroka ama qaadka aan ku shaqeynayay wuxuu ahaa in ay ku horumaraan hogaanka siyaasadda ee heer dowladeed iyo heer federaal inay ku horumaraan arrimahan siyaasadda gelaya oo wadaxaajoodka u baahan arrimaha aan u bandhigaynay bulshooyinka oo dowlad goboleedyada aan ugu yaraan mid walba 4 jeer iyo 5 jeer aan ku noqnoqonay oo aan tagaynay marna la kulminayo oo la isugu yeerayay muxuu ahaa matalayaashooda caasimada waxay ahaayeen marba inta laga soo shaqeeyo muxuu ahaa dastuurka in ay shaayigooda ku darsada aragtidooda oo wixii la bedelay iyo wixii lasoo kordhiyey yani waxa ay ka qabaan ay ku darsadaan yani aragtidooda ayay ahayd marka qabnaqoraadkan ugu dambeeya oo afraad waxaa muxuu ahaa aanu geynay 2 jeer ayaan dowlad goboleedka tagtay markii ugu dambeysay unbaa ay suurtoobi weyday in la tago muxuu ahaa puntland iyo Jubaland khilaafaadkaas aan sheegay awgood laakiin saddexdii kale xataa aragtidoodii weli ma ay keenin dhowr jeer aan ku noqnoqday laakiin weli aragtida laga sugayaa ma aha arrimahan yani muxuu ahaa waxa weeye kow horta inay nala qabaan iyo in kale yani qodobada inta aanu muxuu ahaa yani u aragnay inay yihiin kuwa u baahan wadaxaajood siyaasadeed iyo kuwa aan u baahnayn la isku raacsan yahay inay nala qaataan inta la hubo inaan la isku raacsanayna in loo daayo inay meel isla dhigaan yani hogaanka sare oo isku taa way jirtayba laakiin masiibada dhacday waxa weeye ciddii ay ahayd in ay isu yimaadaan oo ajendaha ku darsadaan oo ka wada xaajoodaan ayaa maaragtay muxuu ahaa priority waxaan la yidhaahdo ama mudnaanta hore yani oo dhibaatada weyn oo sidiisaba yani dastuurku la jiisamayo yani waxaa qayb ka ah waxaan weli la gaarin heer mudnaanta hore la siiyo ama ha noqoto wacyiga yani bulshooyinka oo aad moodo inay fahamsanaynba ama ha noqoto maaragtay muxuu ahaa mas-uuliyiinta yani in la siiyo loo arko dastuurku ahamiyadda uu leeyahay oo ah inuu yahay tiirdhaxaadka dowlad dhiska tiirdhaxaadka dib u heshiinta ummadda tiirdhaxaadka muxuu ahaa xalinta khilaafaadka jira oo mar walbaba soo noqnoqonaya waxaasoo dhan furaheedii inuu yahay sidaa darteedna asaga yani mudnaanta la siiyo waaya maxamed aad baa umahadsantahay waqtigaa naga dhacaya waa mahadsan tahay barnaamijka gunaanadkiisii baan ku jirnaa waqtigaa naga dhacaya afyara si yaroo kooban oo ilbiriqsiyo ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adna aad uga falcelisid doonis la-aan siyaasiyiinta iyo hogaamiyayaasha heer dowlad goboleed iyo heer dowlad federaal intaba ma jirta oo waxa bahalkan jiidaya oo u dhaqaaqi la-yahay dastuurkani taa qayb ma ka tahay si kooban way jirtaa capacity-ga iyo wilka labadaba doonista iyo tabarta labadaba way yar yihiin doonista waxaa keenaya dowladeena hadda markaad fiiriso farmaajo markuu imaaday meeshii oo arrintan si structural u abaari lahaa wuxuu is yiri war waxaan ma taagi kartid madax saaxiibada ageyso meelaha tiyaa waqti ku dhumay dagaalkii weli lagu jiraa capacity-na maba jiraba marka runta loo hadlo oo tabartiiba ma jirtaba sida Maryan Cariif sheegtayba aad baa umahadsantahay xildhibaan Maryan Cariif waqti intee leeg baad hadda filaysaa inuu qaadan karayo qabyatirka dastuurkan dastuurka qayb la iskuma haysto
qaybta caadiga ahoo generalka ahoo dastuurkasi ku jirta laysuma haysto wax yar laysku haystaa wax nagu qaybta nagu cusub ee federaalku keenaa la rabaa in si fiican xoog loo saaro laga shaqeeyo qaybta hore waa naqaanaa soomaali way wada taqaanaa qaybtan cusub aanan qaybta cusub waqti intee la-eg bay qaadan karaysaa xildhibaan maryan adoo inoo soo koobaya in la isla fahmo laga heshiiyo 4 sano soo socotaa laga shaqeyn doonaa qaybtaas waayahay xildhibaan gudoomiye maxamed daahir adoo ilbiriqsiyo kusoo koobaya 4 sano soo socota ma kula tahay in dastuurkan lagu qabyo tiri karayo